بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأبو بكر محمد اللحوم إن شاء الله تعالى. هذا الله إذ مرهيو ما أنت تن وحين شريحة دونا امتحانكي الدولة دا أجازنك وحبر الشهر مركا وقاضي سنة كيلو ذكون لبا تنية لبا دي وامتحانكي هذا أودن بيكي كوريوي كي هذا أودن بيناسينا إن شاء الله تعالى وكسوحي دونايه. امتحانkan maadada aynu sharaxi doono maanta waxay noqon doontaa maadada sayniska. waxaynu soo sharaxnay maadada xisaabta oo ka koobneed laba qaybood insha Allah taala. maadadan marka waa maadada sayniska iyana maadooyinka kale oo hadii leed mahay sidaas oo kale ayaynu ugu soo xijin doonaayo waynu soo sharaxi doonaa marka fasalka sideedaadka. waxaan rajaynayaa insha Allah taala inuu aad iyo aad u dayri doontaan si markaas aad imtixaanka aad geli doontaan haddii aad mahayo oo aad u gudbaysaan dugsiga sare aad ka keensataan dhibco aad u wanaagsan dadaalka marka la badiyo insha Allah taala. maadadu waa fasalka sideedaad waa maadadu waa saynis waana fasalka sideedaad sanadka la qaadayna waa 2022 sanadkii bishii waxa weeye May ee la qaaday sanadkii hore. marka waxyaabaha laga baahan yahay ugu horeyn inaad samayso inta aadan imtixaanka ka shaqeyn waxa weeye magaca oo afaran macna waxa weeye macnaa hebel oo kale magaca waliba ku qoran ay dhiga lagu siinayo ayaad ku qoraysaa sida uu qoran yahay aad ugu qoraysaa insha Allah taala. roll numberkuna waa isla tiro taxane ku qoran ay dhiga lagu siinayo dalkaas ku qori doontaa. dugsiga magaciisa aad halka ku qori doontaa yani dugsiga adigu aad dhigato ama aad dhiganaysay ayaad ku qoraysaa halkaasi. xaruntana waxaad ku qori doontaa halkaad imtixaanka ku galayso markaas aad xarunta geli doontaa haddii la idmay waayahay. macluumaad kale oo yara waxaa jira muhiim ah macluumaadkaas oo ay tahay inaad ogaato intaadan ka jawaabin su'aalaha. macluumaadkani maado kasta sidan ay wadataa maado walba sidan ayaa lagu siin doonaa. fadlan waa akhri tilmaamaha si kaadsiyo leh yani si tartiib u akhri degdeg lama rabo tartiib u akhri ka hor inta aadan ka jawaabin su'aalaha. ugu horeyn waxaad akhrinaysaa tilmaamaha lagu siinayo. tilmaamaha shanta tilmaamo ayaynu akhrin doonaa. marka koow waxaa la yiri ku qor meelaha banaan ee la sheegayo halka hadaynu soo sheeganay magaca iyo roll numberkii dugsiga iyo xaruntii weeye. meelaha banaan waxaad ku qoraysaa magaca oo dhameystiran roll numberka dugsiga iyo xarunta waa intaanu soo sheegnay. qodobkaas waa qodobka koowaad weeye. qodobka labaad waxa weeye ka jawaab dhammaan su'aalaha. su'aashii aan laga jawaabin lama saxayo. ka jawaab dhammaan su'aalaha macna waxa weeye su'aal kasta ee ku jirta imtixaankaas ka jawaabto. isku day hadii misalan ba imtixaanka hadda midka kan oo kale guud ahaan wuxuu ka kooban yahay waa su'aalo toos ah sidoo kale waa su'aalo maxaan ku raahday doorasho iyo su'aalo buuxbuuxina. marka su'aalaha tooska aan ku leeyahay dabtirkoodu waa su'aalo oo yar iska fudud oo ma dhib badna dabcan qofkii akhriya. marka su'aalo aadan ka jawaabin ha ka tagin yani hadii waxa laga yaabaa sida aad soo noqon doontaa halka u sii banay dhib ma leh. numberka baad qoraysaa su'aasha jawaabtada siinaysaa kadib numberka kale aad ka tagi lahayd ka tagi meeside markii aad soo laabato ayaad markaas qoran doontaa marka shaqeyn doontaa adigoo su'aashii numberkeeda siinay jawaabtaad bixinayso. qodobka saddexaad waxa weeye qodobka saddexaad waa u qor si muuqata kuna qor qalin leh qad buluga yani horta qalimada la diidayo qalimadan kale misalan jaalaha guduudkan uga jeeda qalinkan guduudka ah iyo qalinkan xagaarka ah iyo madowga xitaa laakiin ayagu hadda waxay rabaan dadku qorto qalin leh qad buluga soo marka laba qalin oo kale inaad qaadato waliba qalimadan kaliga afar nooc uu yahay hadaad qaadato ma bino ka dhumi karo kaligiis. marka laba qalin oo waxaad qaadanaysaa qad buluga leh oo buluga dhigaya. qodobka xiga waxa weeye isku day inaad ka jawaabto dhammaan su'aalaha imtixaanka aad ka jawaabto isku day. qodobkan wuxuu adkeenayaa qodobkii labaad ayuu adkeenayaa. shanaad waxa weeye ku toosnow dhammaan shuruucda imtixaanka iyo waqtiga loo xadiday yani qodobkan shanaad waxa weeye imtixaanku shuruuc buu leeyahay. shuruucda imtixaanku uu leeyahay waxa ku siinaya muraaqibka ama qofka imtixaanka ilaalinaya
marka qofka imtixaanka ilaalinayo dabcan asagoo gardarro ma wado balse wixii la soo amray ayadana ku sheegaya waxaad yeelaysaa marka shuruucda imtixaanka u taal lagu sheegayo markaas qofka ku sheegayo inaad ku toosnaataa laga rabaa insha Allah ta'ala waqtiga imtixaanka loo xadidina sidoo kale inaad asna adan wax ku darsan dabcan waqtiga imtixaanka loo xadiday waa 2 saac meelahaas badanaa ayaa loo xadiday imtixaanaadka caadiga hadda la galo haddii hal saac bar lagu qoro ama 2 saac lagu qoro intaba waa okay hubi in imtixaanku ka kooban yahay 6 bog yani imtixaanka kaliya ma imtixaanka hadda aan sharaxay ayaa ka kooban 6 bog balse imtixaanada kale waxay ka koobnaan karaan 7 bog waxay ka koobnaan karaan 5 bog way ka badan karaan wana ka xiran karaan marka intadan shaqada gelin ka horba imtixaanka inta bog ay ka kooban yahay hubi markii lagu yiri iska hubi marka page-ka ugu dambeeyay ilaa page-ka koobaad waraaq maqan waxaas dhan iska fiiri markaad wada hubiso kadib waxaad sameyn doontaa hadii inta bog hubi lagu yiri hadii uu yahay shaqada bilow hadaan u ahayna muraaqibkaad yiri doontaa ama qofka ku ilaalinayo ama imtixaanka ilaalinayo waa macalinka marka sadii doontaa imtixaankan uu kala maqan marka asaa imtixaanka isku dhameystirayo waajibkaas adiga marka kuma saara ay asaga saaranta wayahay intaas dad ilfahamta kadib waxaan ugu leeyahay qaybta ugu koobaad ee goobageli imtixaanku wuxuu ka kooban yahay qayb goobageliya iyo qayb markaas maxaan ku yiraahdaa buuxis laakiin buuxiskaasi waa buuxis ereyada lagu siinayo iyo qayb xogeer isku aadina ayuu ka kooban yahay marka qaybta ugu horeysa aynu fiirinayna haddii la idmayo qaybta ugu horeysa waxa weeye goobageli jawaabta saxda ah dhibcaha lagu saxayo iska fiiri waa 40 dhibcood halka waxaa inoo qoran in lagu saxayo 40 dhibcood marka su'aasha ugu horeysa inuu bilaabayna haddii la idmayo waxa la yiri cuduradan soo socda keebaan lagu kala qaadin hawada يعني وعذره بتاع حبل وسي مثلا فيرسو بأرجب كايل وسي تأبرو برونكيتها أما برونكيتها أيل وسي جاء تيبي شدا أما خاحد أيل وسي حقنا وحلوش ضاعونك سمرك أفرتان إسكان فيريا وحد إسكا دونتا كيبا إيو كيبان ماشا وماشا اللي سوق قادوي إسكا فيري هدي اللي قرأت كيبا كاسا لغا الدنيا كيبان هدي اللي قرأتنا يعني واحد بدن لكن متك مثل العرب لكن كيبا هدي اللي قرأتو واحد بدن خلدن هل حبا سحن فهميسان كيبان هدي اللي قرأتنا انت سحن ماني كان خلدن ادورن إسا سو مركا دوحا ليرو عضوطان سو السعودة كيبان ديد موي معنا كيبان لو كلا قادين هودا هرقبك هودا ولو قادا بروكيتدا ولو قادا تي بشدا مقاحدنا هودا ولو كلا قادا لكن عذرك aan hawada ku gudbin ama hawada aan lagu faafin waa cudurka lagu magacaabo daacunka saas awgeed jawaabta ugu horeysa ama su'aasha koobaad ee doorashada jawaabteeda koobaad xarafka saxda ah waa xarafka xa sidaas marka awgeed xarafka xa ayaan saas ku gulinayna oo ah daacunka su'aasha labaad marka su'aasha waxa weeye tamarta kuleed ee ugu weyn dunida ama adduunka waxay ka timaadaa tamarta kuleed ee ugu weyn dunida ama adduunka waxay ka timaadaa ba korontada ta biyaha ja qoraxda xabada tamarta ugu weyn dunida halka laga helo waa xarafka ja waa qoraxda soo marka xarafkaasi ja insaas goobada ku gulinayna aslan ba tamarta ugu weyn halka laga helo waa ama tamarta isha ugu weyn ee tamarta ka timaado waa qoraxda weey marka su'aasha saddexaad baan eegi doonaa saddex waxa la yiri sawir hoose ama sawirka ay kala meesha sawirka hoose ku yaala ama sawirka hoos ku yaala wuxuu na tusiyaa habka geedku ku marka ba waxa la yiri qashinka u saaro ta waxa la yiri u neefsado ja waxa la yiri cuno u sameeyo xa waxa la yiri korid u sameeyo haddaba xarafka saxda ah intaanan gaarin ka hor geedka balinu eegno geedka markaan fiirino halkan waxaa keenaa in falaarihi qoraxda inay halkaas soo galayaan halkan waxaan u jeednaa in carbon dioxide kii halkan waxaan u jeednaa oxygen kii halkan waxaan u jeednaa water kii marka halka daruuro iyo roob da'ay oo kale marka geedkan waxaan dhihi karnaa habka sawirka uu na tusayo waa habka geedku u samaysto cuno weyn ilan habka geedku intuu u samaysto geedku markuu inta samaysanayo hanaanku u samaysto horta photosynthesis balda hala dheemo ma xume photosynthesis kaasi si uu dhaco wuxuu u baahan yahay biyo ayaa kamid wuxuu u baahan yahay carbon dioxide wuxuu u baahan yahay iftiinka qoraxda iyo maadada cagaarsan haddaba intiba geedkaas way ka muuqdaan saas awgeeda waxaan leenahay
xarafka saxda ah waa xarafkan ja oo ah sawirkaasi wuxuu na tusayaa sida geedku uu u samaysto cunto uu samaysto way su-aasha marka waxaan ugu gudbaynaa afraad waxaa la yidhi birlabtu waxay leedahay ba 2 cirif ta 3 cirif ja hal cirif xa 4 cirif jawaabta saxda ah waa ba oo ah 2 cirif birlabtu 2 cirif leedahay waa cirif qoyi cirif koonfureed labadaas cirif ay leedahay north iyo south haddaba jawaabta saxda ah maadaama ay ba tahay waxaynu goobadii gelinaynaa xarafkaasi ba taana waxaan rajeynaa inaad ila fahamtay insha Allah taala su-aasha xigta waxa weeye walaxda waxyar halkaas soo dhaweeyo si loo wada arko shan waxa lagu yiri walaxda ugu yar ee curiyuhu ka samaysan yahay taas oo leh astaamihii kiimikaad ee curiyaha waxaa loo yaqaanaa walaxda ugu yar ee curiyuhu ka samaysan yahay waxaa loo yaqaanaa ba atom ta isku dhis ja isku dhaf ha curiyaal haddaba jawaabta saxda ah waa xarafka ba oo ah atom ayaa ah xarafka saxda ah waxaan ku xujinaynaa su-aasha lixaad waxaa lagu yiri halbeeg u fiirsayaa halbeega lagu cabiro hawsha waxaa lagu magacaabaa ba newton ta joule ja kilogram maxaa mitir halbeega lagu cabiro hawsha waxaa lagu cabiraa joule sidaas awgeed xarafkan ta ayaa wuxuu noqonayaa xarafka saxda ah oo hawl la qabtay waxaa lagu cabiraa joule ogow newton aan ku sii sheegay inaad imtixaanka aad ku aragtaa macquul ah ba waxaa newton waxaa lagu halbeegaa xooga kilogramna waxaa lagu cabiraa cufka ama maaska waxaanu naqaano mitirna waxaa lagu cabiraa ama lagu halbeegaa fogaanta laakiin hawl la qabtay haddii lagu yidhahdo ama hawsha waxaa lagu halbeegaa joule sidaas awgeed ta ayaa ah xarafka saxda ah 7 markaan eegno su-aashan 7 waxaa la yidhi adiga oo kaashanaya sawirka hoose sheeg neefta ay dhirtu ka hesho xayawaanada sida caadiga waxaan u jeednaa halkan waxaa taagan waxa la yiraahdo sac baa taagan sacani dabcan neef buu saarayaa neeftaas uu saarahayo waxaa qaadanaya dhirtiina neef bay soo saaraysaa neeftaas ay soo saarto waxay ku soo noqonaysaa saac haddaba labadaas neef ayaa waxay tahay inaan kala magacaabno ogow xayawaanku aslanba neefta uu saaro waa neefta carbon dioxide maxaan ku dhahay xayawaanku neefta uu saaro waa neefta loo yaqaano carbon dioxide halka neefta uu qaatana loo yaqaano oxygen macnaheedu waxa weeye sacu wuxuu siinayaa dhirta neefta carbon dioxide balse dhirtu saca waxay siinaysaa neefta loo yaqaano oxygen haddaba adiga oo kaashanaya sawirkan hoose sheeg bal neefta ay dhirtu ka hesho xayawaanada soo maahan ba oxygenta ma aha ta nitrogenna ma aha ja waa carbon dioxide neeftaas ay ka heshaa neeftaasna waxay ugu helaysaa ama waxay ugu baahan tahay waxa weeye si ay u samaysato cunto ilan waxyaabihii ay u baahan dhirtu inay samaysato cunto ayaa waxaa kamid ah carbon dioxide haddaba xarafkaas ayaa sax ah waxaan u gudbaynaa su-aasha 8 ayaan u gudbaynaa 8 waxaa lagu yiri retiinada ishu waxay soo saartaa sawir foorara xubinta saxda sawirka waa sida caadiga ishu qaybo badan bay ka kooban tahay misalan ba xoobka isha bikaacada wiilka retiinada way badan yihiin balse retiinada ayaa halka joognay retiinada ishu waxay soo saartaa la yiri sawir foorara xubinta saxda sawirku markuu isha galo oo xoobkii wiilkii isha bikaacada sii maro retiinada uu ku sameysmo sawirka walaxdii wuxuu muuqanayaa sawir am qaab foorara laakiin sawirkaasi xubinta saxda waa ba bikaacada isha ta maskaxda ja neerfaha aragga ha xoobka isha haddaba jawaabta saxda ahi waa xarafka ta oo ah maskaxda ayaa waxay saxdaa sawirkaas yani sawirkii foorara ee ku sameysmo retiinaha sawirkaas inaanu foorarin uu yahay sawir taagan waxaa saxaya maskaxdii weeye haddaba xarafkaas ayaa saxa waxaa lagu gudbinaa su-aasha 9 muddada ay cuqda tahay digaagadu yani doorada weeye dad basi yaqaanay mogta digaagadu dooradan caadiga ah ee la dhaqdo ee diiqa iyo doorada weeye dooradu waa marka waxaan ka hadlayno waa ba 12 maalmood bay cuqtahay 20 maalmood bay cuqtahay oo ta ah 20 maalmood bay cuqtahay oo ja ah ama 31 maalmood ay cuqtahay oo ah xarafka xa haddaba jawaabta saxda ahi waa xarafka ja oo doorada cuqda inta ay tahay waxa weeye 21 maalmood
su-aasha tobnaad ugu gudbaynaa curiyaha ugu badan ee hawada ka kooban tahay waa curiyaha ugu badan ee hawada ay ka kooban tahay waa ba hydrogen ta oxygen ja nitrogen ha carbon haddaba jawaabta saxda ahi waa xarafka ja oo ah nitrogen ayaa waxa uu yahay hawada ugu badan ee markaasi waxa uu jeedaa haye waxa weeye curiyaha hawada ugu badan ee hawada ka kooban tahay waa nitrogen wey oxygen iyo hydrogen iyo carbon inta hawada ugu jiraan laakiin kan ugu badan baa lagu weydiiyay biyaha macaan ee oogada dhulka waa 12% oo ba ah ta 30% ja 3% ha 1% su-aasha jawaabteedu waxay noqon doontaa horta biyaha macaan baa lagu jiray biyaha macaan yacni biyihii baa lagu sii kala qaadayo biyaha qaarna waa qaar dhanaan qaar waa qaar qararan la cabi karin qaar waa kuwa barafa qaar waa kuwa macaan marka kuwa macaan ee la cabi karo oogada dhulka saaran biyahaasi waa 1% soo marka xarafka ja xaraf waxaan ugu jeedaa xa aynu sidaasi goobada ku gelinaynaa iska fiiri meeshan meelahan imtixaanaadku inta badan waa ku soo laabataan iska fiiri ardayo iska fiiri sanadka dambe insha Allah taala inaad baasto oo aad gudubto isku day wafacaha ka harin way su-aasha 12aad baan gudbaynaa humaaga kaamirada bindaloolka waa kaamirada bindaloolka ah waa mid humaaga ba waa mid toosan waa humaag toosan yacni ta waa mid taagan ja waa jiifa ama humaag jiifa ha waa rogan ama forra jawaabta saxda ah waa هي ما فهمتي وحرف كح أو مد روجن أما فررة كاميرا بندلولك هماك جيدو وهماك فررة أو إيش بقى هماك اسمه هماك فرروي لكن مسكحة ساعة صماهين لكن كاميرا بندلولك هماك جيدو وهماك فررة وهي وحسحنا مجرى يا لما سيح كرايا كاميرا بندلولك كاميرا بندلول كاميرين كهر الاستعمال جروي كاميرين هذا ما بقى هذا كاميرين هذا الاستعمال ديجيتال كان معه كاميرين كي هروي ويا su-aasha 13 ayaan u gudbaynaa waxa lagu yiri cudurka waraabowga heerkiisa saddexaad waa marka uu u gudbo waraabowga heerbo mara heerka koobaad heerka labaad heerka saddexaad heerka saddexaad marka cudurkaas marka u gudbo waa marka waa ba xubnaha taranka يعني عذر كسرابو هيركيس دحد أمريكا وجود بو بقى منها ترى كمركو وجود بوي على عشاء يعكت مركو وجود بوي مسكح ذا يقدر مياش مركو وجود بوي أفكار مركو وجود بوي جواب الصح ذا هي ما فهمتي وحرف كجاء أو مسكح ذا إيو دري مياش مسكح ذا إيو دري مياش وي حبنا ترنكا على 10 عكتا أفكا انت بويهين لكن هيركا سدحاد بينو كهارلي سكفيري يعني لغا هوس بحينن وعن كهار لأنه هو هيركا سدحاد وي سواش أفريق طبنات أينو فيرين بل فاضمو أيا كورو يحدي سرير حقدان 15 نيوتن وحين أولا غاجي سيف وغان دان 6 متر هوش اللغبتاي وعبأسو دان جول تا 14 جول جاء 18 جول حا 18 جول هذا بقى جوابتي صح ورسوش غينينا تن حيرك الاستعمالي فاضمو حوق وحي ادكستي حوق وحي ادكستي 15 جول سيدو كلا وحي ريحدي فوقان دان ميقو 6 متر هدبا هوش لغبتي انتيوي سما جوابتو سؤاشو هوش لغبتي اسلما وحالو هلا فوقانتا oo lagu dhuftay xoog soo marka fogaantu waa 3 mitir waxaan ku dhifanaynaa xooga oo ah 15 نيوتن سما حوق ماشان جول ماده 15 نيوتن وايا حوق اصلا بنيوتن بالو هالبيغا ساس اوغيت هوش لا qabto waxay leegtahay 3 ku dhif 15 waa 45 نيوتن iyo waxa isku dhacaya iyo mitirka waa نيوتن مترna waxa loo qorayaa jool saas awgeed waxa radinayna jawaab xarafka ay ku xidhan tahay 45 jool soo marka 45 jool waa xarafkee ya 45 جول وحرف تا سداس أوجد وحين جوابات قلينا حرف تا 45 جول هديب لو هوش اللي قد راح حوج يلو سيف وانت اسكولي في اللبس وحكو صباحي هوش لغبتي ويا اسمرك لو حاجر لكن حوايا رسال وسينيني هل كي حوج لو سي لها اف لو سينيو
if iyo fogaan baa lagu siin hawshi baa lagu diri markaasna xoog soo saartaa wey adigoo adeegsanaya kala afjiidka kaasoo leeg 10 mitir per second laba jibaaran ama 9.8 mitir per second laba jibaaran markaad xoogay soo saarta kadib inaad isticmaashaa xeerka lagu helo ama qaacidada hawsha oo ehtiyaadan ku shaqeynayna saasha shay tobnaad aynu eegi doonaa waxa la yiri viruska keena AIDS-ka waxa lagu magacaabo horta mid iska ilaaliya cudurrada qaarna waxa keena virus qaarna waxa keena bacteria مثلا جبتها او كله waraabowga oo kale waxa keena bacteria weey laakiin cudurkan AIDS-ka waxa keena waa viruskaas magaciisu waa xarafkee ma sheegin miyaan ku sheeg horto ba waa HIV ta waa Neisseria gonorrhea ja waa coronavirus ha waa treponema pallidum aan ku sheego marka xarafka saxda ah xarafka horta baawi waa HIV waa virus kaasoo sababa ama keena cudurkan loo yaqaano AIDS-ka human immunodeficiency virus Neisseria gonorrhea iyo treponema pallidum labadaanna waad qaateen cudurrada ay sababaan iska fiiriya mid wuxuu sababaa ama keena horta bacteria weey bacteria magaceedu waa Neisseria treponema pallidumna waa idin waa bacteria magaceedu weey waxaad markaa raadisaa ama fiirisaa cudurrada ay sababaan labadan cudurradan ku sheegaya midna waa jabtada midna waxa weeye waraabowga say u kala sababaan ama bacteria waraabowga yaa sababo yaana sababo maxaan ku yiraahdaa kii kale muxuu ahaa ishak bacteriyada waxaan rabaa waxa sababa cudurkan ku sheegaya hadda muxuu ahaa jabtada iyo waraabowga ay kala sababaan say u kala sababaan ishak 16 hadii hawsha lagu helo qaacidada ha waxay leegtahay ha lagu dhuftay fa xooga fa waxaan ku heli karnaa xooga fa ma fogaanta fa waa meeshaasi ah xooga fa fogaanta fa waxaan ku heli karnaa wey soo marka maadaama u fiirso hawshii maxay leegtahay waa fogaan oo lagu dhuftay xoog soo maahan waxa la doonaya marka waa fogaan yani fogaanta raba macnaha xooga ma fogaanta oo fa loo sagay waxaan ku heli karnaa waxa la fogaanta maxaa ku dhacsan xoog ma ku dhacsano dhinacana xoog u qaybi xoog isla bix fogaanta marka waxay leegtahay hawshii oo loo qaybiyay xoog laakiin hadda saa u qori maayo asugu wuxuu qorayaa fogaan waxay leegtay dhigi doonaa fiirso saas u qorayaa saas uu ku qorayaa oo qaybida caadigeed ayuu isticmaalayaa waa hawl loo qaybiyay xoog marka su'aal ama xaraf waxaan raadinaynaa ay ku xusan tahay fa oo la eg ha loo qaybiyay ha su'aashaas aan raadinaynaa marka su'aashaasi xarafkaasi waxa weeye ba ha loo qaybiyay ha anagu waxaan doonayno waa ha loo qaybiyay ha ma ha loo qaybiyay ha tanna ku dhufo weeye tanna ku dar weeye tan fiir marka waa fogaantu waxay leegtahay hawl loo qaybiyo xoog tan sax marka sidoo xarafka aan dooranayno waa xarafka ha weeye ama x waayahay su'aasha 17aad ay gudbina dariiqada ay maraan saynisyahanadu marka ay sameynayaan baaritaan cilmiyeed waxa la yiraahdaa markay baaritaan cilmiyeed sameynayaan saynisyahanadu dariiqa ay isticmaalaan waxa loo yaqaanaa xog cilmiyeed faafin cilmiyeed dariiq cilmiyeed weydiin cilmiyeed hadaba jawaabta saxda ah ama xarafka jawaabta saxda ku xusan tahay waa xarafka ja oo ah dariiq cilmiyeed waxaan gudbaynaa su'aasha xigta oo ah su'aasha 10aad sababta beeraleyda loogu taliyo ama loogu taliyo in ay habeenkii beerta waraabiyaan waa si loo yareeyo uumibaxa biyaha si loo yareeyo qulqulka biyaha wata ja si beertu biyo badan u cabto ha si ay u bataan socodka biyaha xarafkee waa xarafka jawaabta saxda ah waa xarafka ba oo ah si loo yareeyo uumibaxa biyaha ileen maalinka hadii qorax jirto qoraxii muxuu sameeyaa faleerihii cadceeda waxay ku dhacayaan biyo markii biyo ku dhacaan kadibna waxa badanaya uumibaxa badanaya sidaas awgeed si loo yareeyo uumibaxaasi habeenkii la waraabiyo ayaa qurux badan sidaas ayaa la leeyahay waaya saasha waxaan u gudbaynaa 19aad waxaa lagu fiiri sawir humaaga ku sameysmay retina isha gadashada oo tusinaya cilada araga fog waxa lagu sixi karaa yani
haddii qofkan dhibayo macsalan aragga fog taa macnaheedu waxa weeye humaagii la doonayay inuu ku samaysmo ratiinada dushiisa ayaa wuxuu ku samaysmay ratiinada gadaasheeda. haddaba si aragtida fog loo soxo waxaa loo baahan yahay hadda ujeedaan ratiinadii waatana halkaas markaa ku samaysmay marka halkaa maadaama ku samaysmay si halkaa loo keeno waxaa lagu saxayaa marka nooc bikaaco loo yaqaano ba firdhis ta kulmisa ja weynaysa ha yaraysa. haddaba xarafka ay ku xusantahay jawaabta saxda ah waa xarafka ta. nooca bikaacada la isticmaalayo waa bikaaco kulmis ah. iska fiiri su-aasha qaybtan ugu dambaysa ee ah su-aasha 20aad. xawaaro beeg waa qalabka cabira xawaara socodka xawaare cabira toroba biyaha ta dabaysha ja roobka ha huurka. haddaba jawaabta saxda ahi xawaara beegani waxaa lagu cabiraa socodka ama xawaara socodka dabaysha. sidaas awgeed xarafka ta ayaa wuxuu yahay xarafka saxda. qaybtii koobaad intaas ayaan ku dhameynay. qaybtan labaad iyana maadaama ay tahay xogaayra qayb iska isku aadina oo ka kooban 10 iyana waan ku daraynaa hal qayb oo kale inoo haray qaybtaasna 10 dambe ayna ahaanaysaa. qaybta waxa uu isku beeg joogta xaba iyo joogta xata 20 dhibcood saaran. tii 40 baa saaran min 2 tan 20 baa saaran min 2 waa 10 min 2 20 dhibcood saaran idina waa min 2 60 meesha ku haysta 40 ka dhimana waa su'aalaha tooska joogta bacrimin. u fiirsiya waxaanu sameeynaa markaan eragan akhrino yani ad akhristo bacrimin kadibna aad dhamaan kuwan soo wada akhriso waxaa ka fudud inaad kan akhriso misalan borotono neutrono electrono inaad saa intuu akhriso kadib dhinaca ba aad ka raadiso yaa iskale borotono iyo neutrono electrono yaa leh inaad saa u raadsaa ku qurux badan fahmaysaa. marka waxaan fiirinaa borotono neutrono iyo electrono wax intaas leh astaamaha waxaa meelaha ku qoran wax isleh waxaan ka raadinaynaa joogta xamba bacrimin ma aha caleenta ma aha xidigaha qiblada ma aha aidiska ma aha hoos u soco marka dayax gacmeed ma aha waraabin dhibcis ma aha qaafiyadaha la adeegsado ma aha huunyo ma aha isku dhis ma aha qurubyada atamka kaas wey. maadaama qurubyada atamka ay tahay waxaan filinaa qurubyada atamka xarafkee numberkee waay 30 mayno 30kiyaad soo qaadaysaa. markaad 30kii soo qaado waxaad hor dhigaysaa waxa lagu magacaabo astaamiyan soo sheegnay qurubyada atamka lahaa waxa way proton. marka halkaas waxaad dhigaysaa 30 يعني حرفka 30 يعني numberka 30 erayga ku suntan ama erayga xarafka 30 uu wato ayaa iskale protono neutrono iyo electrono saas way macno. haddana u fiirso waxaan gudbaynaa waa walax ka kooban 2 curiye iyo ka badan oo si kiimikaad isula falgalay. waxaasaan raadinaynaa haddana bacrimin ma aha caleenta ma aha xidigaha qiblada ma aha aidis ma aha dayax gacmeed ma aha waraabin dhibcis ma aha qaafiyadaha la adeegsado ma aha huunyo ma aha isku dhis waaye sax wey. marka isku dhiska waa numberka 29aad. numberkaasaan marka soo qaadaynaa halkaasaan marka waxaan ku qoraynaa 29 yani 29 numberkaasi jawaabtiisi waa tanaa wey. saa u fahmiya saas u fahmi insha Allah. su-aasha xigta marka waxaa lagu yidhi wiishashka forleefka garanta ceelasha biyaha waa tee. waxaan leenahay haddana bacrimin ma aha caleentana ma aha xidigaha qibladana ma aha aidis ma aha saas iisii markaas ilaa aan ka tago dayax gacmeed ma aha waraabin dhibcis ma aha qaafiyadaha la adeegsado sax waa tanaa marka qaafiyadaha la adeegsado numberkoodu waa 27 maadaama uu yahay 27 27kiaan soo qaadaynaa. markaan soo qaadno halkaasaan dhigaynaa waxaan leenahay 27 way fahamtaa maleynaya ya inay fahamtaan rajeynaya. haddana fiirimdaan waa mid ka mid ah hababka ilaalinta iyo maareynta biyaha.
waa mid ka mid ah hababka ilaalinta iyo maareynta biyaha. hababkaas waxaan taantaan waxa leh aan dhinaca soo fiirinayna. markaan soo fiirino koob bacrimin ugu horeysa bacrimin ma aha, xaleentana ma aha, xidigaha qiblada ma aha, aydis ma aha, intaasba ma weli soo soco ilaa xarafka aan ka tagno. dayax gacmeed ma aha, waraabin dhibcis. nacam, waraabin dhibcis ayaa ah habkaas ama astaamahaas iskale. soo waraabin dhibcis ah waa numberka 27. marka waxaan qaadaynaa 27. marka waxaan soo 26 26 soo qabanaynaa. markaan soo qabano halkaasaan ku qoraynaa marka 26. waaye waxaan filinaynaa haddana su'aasha xigta oo ah waxaa loo yaqaanaa xidigo irfadi waqooyi. xidigahan waa kuwee? bal aan hoos ka bilaawno. koraan wadaynaa quruubada atomka ma aha, isku dhis ma aha, huunyo ma aha, qaafiyal dhis ma aha, waraabin dhibcis ma aha, dayax gacmeedna ma aha. koraan u soconaynaa. markaa u socono xidigaha qiblada. waxaan leenahay xidigaha qiblada numberkii waa 23 soo maahan. maadaama 23 uu yahay koraan u wadaynaa su'aashii 23 ayaanu soo qabanaynaa. halkaasaan ku qoran 23. waxaa loo yaqaanaa xidigo irfadi waqooyi. waa tii ay ku xusneeday xidigaha qiblada. waxa ku xiga waa cudur dilaa ah waxaana sababa fayraska HIV ayaa sababa. kan waa taqaan mayno qurbida atomka isku dhis huunyo qaafida laga soo waraabin dhibicda intaanba ma ah. koraan u soconaynaa markaan u soconno hadee waxaan arkaynaa aidiskaas ayaa saxa. aidis marka numberkee waa 24 soomaan. 24 aad soo qaadaysaa. waxaad kor qoraysaa waa cudur dilaa ah. halkaas qoraysaa 24. meere ama mashiin ku dul wareega meere ama xidig. kaas aan toos kugu abaaro maadaama aan warka kaa badiyay. 25 eeg maxaa ku xusan dayax gacmeed. dayax kuma xusno haade. halkaas marka waa meere ama waa mashiin ku dul wareega meere ama xidig. soo marka 25 halkaas dhiganayna. waa xubinta qaabilsan cunno samaysashada geedka. taas waa taqaani soo mahayna. xubinta qaabilsan cunno samaysashada geedka ee toos aynu abaaraynaa waa xubinka waa caleenta soomaan. soo marka caleenta numberkee waaye waa 22. saas awgeed 22 ayaan hor dhiganaynaa. yaa maxaan hor dhiganaynaa 22. labada ugu dambaysa aan fiirinay su'aasha 29aad isku dhisa ku qoran laakiin hore maxaa qoran fiir waa hab midowga unugtarameedka dhediga iyo unugtarameedka labka. kan bacrimin baa loo yaqaanaa. soo marka halkaan fiirinaa qurbida waxaana kor u soconta kuma jiro bacriminta. soo koraan u soconaynaa bacrimin. soo arkayno waa xarafka 22 soo ma. marka 22 soo qaadaynaa waxaynu soo dhigaynaa faahfaahintan ah waa midowga unugtarameedka dhediga iyo unugtarameedka labka. bacrimin baa loo yaqaanaa. kan ugu dambeeya marka waa cayayaan deris ku nool ku ah digaaga kana jaqa dhiiga. huunyo loo yaqaan. markaan 28 huunyo ayaa loo yaqaanaa. saas awgeed halkaas waxaan gelinaynaa 28. haddaba marka intaa markaad fahamto intaa kaliya ku koobnaanine iska akhri su'aalaha iyo jawaabaha buugga ku qoran ka shaqee wadaal badan geli si aad imtixaanka u baas. imtixaankan haddaad tihiin fasalka 8aadka aad ayuu muhiimad weyn kugu yahay. haddii alla eedmaayo qaybtan kale ee ah buuxiska oo maxaan ku yiraahday su'aal lagu siinayo waxaad ku buuxinaysay iyo waxaa inoo haray qaybtan kale ee iyana ah su'aalo toos ah iyana insha Allah taala. haddii alla eedmaayo waxaan ka soo dhigi doonaa hal xafiidyo oo kale balse dadaal wacan dhammaad lama gaarin balse wax yar baa inooga haray. intaan ku soo gabagabeynayaa wabillahi tawfiiq. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.